hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin in la kala diro gudida doorashooyinka qaranka ee qabtay doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2017 dabayaaqadiisii. Shirar jaraa'id oo gooni ay ugu qabteen magaalada Hargeysa labada hogaamiye xisbi Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa mid waliba waxa uu iska taagay arrintaasi meel midka kale ka fog. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu shaaca ka qaaday in xisbigoodu cabasho ka dhan ah gudida doorashooyinka kuna dalbanayaan in la kala diro uu u gudbiyay madaxweynaha. inaan idinku wargeliyo inaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland u gudbinay qoraal aan ku soo ururnay dhaliilihii doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland ee dalka ka qabsoontay 13kii November 2017 iyo gafafkii laga galay xeerarka diiwaangelinta iyo doorashooyinka. qoraalkaas aanu saaka u gudbinay waxa xisbiga wadani ku muujiyay inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishanka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin. waxaanu codsaday in komishanka la kala diro komishan cusubna si dhaqso ah loo dhiso si doorashooyinkii inagu soo fool lahaa waqtigoodii ugu qabsoomaan. kulmiyana way ka go'an tahay madaxweynaha ka go'an tahay anaga wanaga go'an tahay in doorashadaasi dib u dhicin haddii xisbiga kale uu diido anaga ogolaanna waan soconaysaa insha Allah taala doorashadu wax dib u dhacaya ma jirto. commissioner waxa la yiri do not change your horse at the bottom of the river adoo webi socda webi dhex socda faraska lama bedelayo faraska kuma bedeli kartid marka waa webi aan soconaa وصعنيسا ما كان وحنا ركعون ده كلمة عن وقت جيد هين كلمة كبر العران كوميشن كا وبوقان كرتين وده كله دوني إنه مورنجلو. فرانتي بيشان أيه هاي تمركي مدحوينها الصومالي للموسى بيح عبده وكلن لقاتي جود دورشوين كا وحواره كما صبحين كلن كمدحوينها إيه جود دورشوين كا hase ahaatee waxa uu ka mid ahaa kulamo gooni ah oo madaxweynuhu la yeeshay hay'adaha ku shuqul leh arrimaha doorashooyinka sida golayaasha xeer dejinta guddiga doorashooyinka iyo garsoorka. Salmaan Cabdi Cali warbaahinta STN Hargeysa.